بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتا إن سودو هذا دمان تيمبا وحن شعل هاي إن مانتا عن إن لو ذاقو بوغن قاليقة أو ورشري حق يحسوس قر وقري إن صاحب كي ما هذه كجارتي أحمد سيد عيقة بوغن مركا إن waxaa gacanteeda soo galay maalintii axadda oo aan soo qaaday muddo fara badan ayuu isagoo ku dhiisa lockdown ku jiray oo xayiraad lan gees ka yaalay nin kale oo asxaabtii hore BBC da uu mahadsan yahay fadal ayuu u soo dhiibay oo ilaa Hargeysa soo qaaday buugan marka saaxiibkii Axmed Saciid marka buugiisa waxaan jeclaystay inaan ka hadlo ugana mahad celiyo runtii in juhdiga uu geliyay in buugan taariikhiga ah oo runtii buug wax badan ay ka faa'iideyso in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda dadka ku jira xirfadda warbaahinta iyo waliba dadka bahda siyaasadda ku jirta ee iyaguna siyaasiyiinta ah oo wax badan ay ka faa'iidi karaan sababtoo waxa ku kooban buugan oo Axmed uu kaga hadlaya 40 sano oo dhacdooyinkii waaweynaa ee uu isagu soo wariyay intii uu saxaafadda ku jiray iyo waliba shakhsiyaadkii ugu muhiimsanaa ee uu wareystay muddadaasi 40 sano ah oo geeska gees uu buugga ka hadlayo taariikhdoodii waxyaabihii ugu waaweynaa soo maray iyo waliba taariikhdiisi laga soo bilaabo ilaa dhamaadkii 70-meeyadii markii uu shaqada ka bilaabay Radio Muqdisho markii dambana Radio Hargeysa loo wareejiyay kulliyadii saxaafadda Soomaaliya ee jaamacadda La Foole waxa kale oo kaga hadlaya oo waxyaabaha aadka ii dhiirigeliyay aniga buugga aadna aan u jeclaystay kamid ah sawirro fara badan oo muuqaal ah oo taariikhi ah ayaa ku qoran ka buuxa waxa ku jira midkan oo Axmed Saciid sawirkaas aad u jeedaan waa Axmed oo yar runtiina sababahan u dhahay buuggan waa buug taariikhi waxa weeye in sawirkaasi inuu yahay mid kamid ah kuwa ugu ahmiyadda weyn sababtoo ah waa sawirkii ugu horeeyay sanadkii 1983 markii la furay telefishinka qaranka ee Soomaaliya oo Axmed uu ahaa wariyihii ugu horeeyay ee warka aqriya telefishinka Axmed waxa uu ka soo shaqeeyay meelo fara badan oo wadanka gudihiisa tababar ayuu ku soo qaatay dibadaha waxaana uu ahaa raggii udubdhaxaadka uu ahaa warbaahinta Soomaaliya marka waxa kale oo uu si gaar ah Axmed buuga wax fara badan uga hadlaya 20kii sano ee ugu dambeeyay oo iyana uu nagala shaqeynayay idaacadda BBC da oo Axmed uu ahaa nin xirfad leh hawlkar ah ka adag runtii shaqadiisa waxa si way aragnimo ayaa ka buuxa marka sababta aan marka dadka ula wadaagayo haddaan u soo koobo dadka daawanaya muuqaalkan waxa weeye buugan in uu wax u tarayo oo ahmiyad gaar ah u yeelanayo dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed marka ugu dambeyntii waxaan jeclahay in aan ku dhiirigeliyo intii ay u suurtagalaysaba in warjire xog iyo xusuus qor oo waxaan la heli karin 40 sano wixii uu ku soo koobay Axmed Saciid aad halkan ka hesho aad akhriso marka aad iyo aad baad u mahadsantiin